qabiilnimo yaa doonayo raba yaa qareenka daafaca ugu deeqayoo wada sida aan horay u sheegay bilowgii suugaanta deeleyda labana isku bax ayay ahayd oo waxay ahaayeen isaaq labana waxay ahaayeen daarood ama mariixaan qaraabo la ah madaxweyne maxamed siyaad barre in hadraawi door yahay gaariya da nool yahay yamyamdaadka webi yahay idaajaa ka daran yahay aniguna raggaa daran kan ugu daran ka daranahay nabadi doorta allaha u naxariistee oo ka hadlayay gabayadii uu ku lahaa deyleyda waxa uu yidhi maxamed siyaad barre ayaa u yeeray 4 nin wuxuuna ku yidhi waxaan rabaa in aad soomaalida in aan ku jeedino ee idinku xilkaas iga qaada 4taas nin waxay kala ahaayeen allaha u naxariistee maxamed xaashi dhamac gaariye maxamed ibraahim warsame hadraawi cabdulqaadir xirsi yamyam iyo axmed faarax cali idaaja 4taas nin oo marka si loo fiiriyo labana isku bah tahay labana ay ku bah tahay madaxweynihii barigaas jiray waxay isaga soo horjeedeen labo si ay dadka Soomaaliyeed wax uga ogaadaan qaabkii uu u fikri jiray Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare bal aan dib u fiirino maansadii la magac baxday deeleyda qaybtii koowaad ee uga qayb galay isla markaana ugu wanqalay danguud 19 taariikhdu markay ahayd 28 bishii January 1980 xilligaas oo uu joogay magaalada Muqdisho oo ay deeleydu ka curatay wuxuuna yiri sidan afdaboolan dahabkii maskax darartay dooqeed abwaan diiray doorkiis nin isdiray dadaalkiis murti daad ah dulcdeed hadal dalab leh dabarkiis sarbeeb ka duwan waxa dariiqa nolosha dadkoo idili soo maree diiwaan ka buuxsamay dabadeed waxaa yimid dadaalkii aqoonto cilmi diiradu sido dabeecadda adeegsaday dayuxuna sahan tegay doorkii kaloo xigay dabaqadaha loolama oo danaha kala duwan ku dagaalamaa yimid waxaa daahiriye ugub marka xiga waa duni cajaa'ib ah allah u naxariistay Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare wuxuu ka mid ahaa sida aan horay u sheegay raggii ka qayb galay suugaantii loo yaqaanay deeleyda wuxuuna tiriyay tixmaansa ah maadaama ay ahaayeen raggii bilaabay waxaana tixdaas ka mid ahaa in hadraawi door yahay gaariya da nool yahay yamyamdaadka webi yahay idaajaa ka daran yahay aniguna raggaa daran kan ugu daran ka daranahay nabadi doorta haddaba markii ay cirka isku shareertay suugaantii deeleyda waxaa abwaanadii ka qayb galay oo ay tiradoodu gaaraysay 64 xubnood looga yeeray golihii murtida iyo madadaalada ee magaalada Muqdisho National Theatre waxaa galabtaas u yeeray ciidamadii nabad sugidda iyo wasiirkii warfaafinta allah u naxariistay Dr. Maxamed Aadan Sheekh isla markaana uu goobjoog ka ahaa sareeyo guuto Nuur Xasan Shareeco oo ahaa maareeyihii golihii murtida iyo madadaalada ee magaalada Muqdisho wuxuu allah u naxariistay Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare galabtaas codsaday tixdii labaad ee uu tiriyo laguna soo gabagabeynay suugaantii deeleyda hadhow intii la qabsan lahaa oo aan banaanka ka sheegi lahaa waxaan ka codsaday wasiirkii wasaaradda warfaafinta inuu iga ogolaado galabtaas waxaana lagu yiri iyadaa lagu qatimi ee tiri waxaana erayadaas ka mid ahaa erayadii la yaabka lahaa oo taariikhda galay oo xanuunka reebay galabtaas sida aan horay u sheegay bilowgii suugaanta deeleyda labana isku bax ayay ahayd oo waxay ahaayeen isaaq labana waxay ahaayeen daarood ama mariixaan qaraabo la ah madaxweyne maxamed siyaad barre suugaantii galabtaas uu ku soo gabagabeeyay Kadare intii uu iiga sheegay ama uu ka xusuustay intii aan ururinayay qoraalka buugan aan ugu magac daray xusuustii kasmadii iyo kaalintii Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare ee lagu soo gabagabeeyay dagaalkii dhinaca suugaanta ee beelaha Soomaalida ka dhex qarxay sababteedana uu lahaa madaxweynihii xilligaas allah u naxariistay maxamed siyaad barre wuxuuna yiri qabiilnimo yaa doonayo raba yaa qareenka daafaca ugu deeqayoo wada duf iyo baalal kuma yara mana duusha gorayadu waagii habar dugaag iyo haadu ay dagaaleen oo labada daafood ciidamada la soo dumay iyadaa la wada dilay oo duulba duul yiri idinkay dirtiin tahay dabaalnimo daawo ma leh waa hadallo sarbeeb ah ay ku jirto laakiin ninkii tiriyay ayaa og ujeedada uu ka lahaa galabtaas ujeedada
وكلي هاي دبالنمو دبيب ماله ظلم يدرسار ماله وزيركي ورفافينتا الله نحرسته دكتور محمد آدم الشيخ wuxuu ku yiri markii uu dhameystay gabagabadii gabaygii lagu soo gabagabeeyay dagaalkii ay sababtay suugaanta deeleyda wuxuu ku yiri Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare haddii aan ogahay inaad sidaas u hadlayso kaama yeeli lahayn hadda sawaa dhacday ee halkaas ha ku ekaato Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare wuxuu burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya madax ka ahaa shirkad wax dhoofis waxna soo dejiso oo la oran jiray Kadare and Sons markii dawladii jamhuuriyaddii dimuqraadiga ee Soomaaliya la riday 26 bishii January 1991 wuxuu noqday wasiirkii warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee dawladii ku meel gaarka ahayd ee Allah u naxariisto madaxweyne Cali Mahdi Maxamed Allah u naxariisto Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare intii uu sangeeriyon ka hor wuxuu ka qayb galay shirarkii dib u heshiisiinta ee lagu heshiisiinayay walaalaha ciloobay ee Soomaaliya shirarkaas oo lagu kala qabtay dalka gudihiisa iyo dibadiisa laguna unkay dawladnimada maanta aan haysanay ee Soomaaliya intii uu sangeeriyon ka hor Allah u naxariisto Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo caan ku ahaa dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida wuxuu tiriyay shirib wuxuu yiri 7 aan isku tuhmaan tolka wax uga taabaha wuxuu yiri 10kii 7aad intaan tirshaan meel ku tirshi 7 aan ka tuuray inta aan la ituhminna wayga taas yani 7 jiraan ahay waay haddaan timaha taabtana wixii tifnaan jireen taba yani timtu tuuray lahayd hadda sabidaara timid waay waxaan tumma wixii tifnaan jiray haddaan tilaabo tuurana wuxuu yiri haddaan talaabo tuurana inta istafaan dhulka istuba yani haddaan socdo oo talaabo qaadana waa dhaca tayda ila toosano 10 jir aan isku tirshaa يعني أنا هذا 30 جير أنا ولي لكن وحنا هيستا 8 جير أنا مال أي تعسيد تال مركان أركان استهماء يعني ده أنجره تضباطن كوري ودافت مال أي تعسيد تال له أما جيري كده عادي مركان أركان استهماء يعني إن وقت جاي يقولوا يها مركان سانجرتا تي الله هدي أي تماد ليلة تشمع هو ترحيل هدي يعني وقت جاي قلت ماذا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هدي أي تيدو تمادنا ليلة الشمع يلقيشي جماعي ولا يديه مايو متجي إيه والله يسترحيله هو أبوان محمد إبراهيم ورسام هدراوي وكهل لا أبوان نمذا الدكتور حسين شيخ أحمد هلو لكدري وحا وتري قبي وكلها قيب كمدو أنك حسوسته هل كدير ديقو هل كدير وقت يقول ديقو دب اللوغة شيكين كدراء ومقع بحين طيب يال وحان في ليائن واحد بدنك كورستين هما أتكفانتين تاريخ ذا حسين شيخ أحمد كدره ومانتا ومركل إنو مرينيي عبد العزيز علي إبراهيم وكما قاعدين عبد العزيز حلبان وحنا يسكي هلالي تاني يقول هذا برالي كنا ضحين كده تجي سدا يوني بتكليه